bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaal kusoo dhowaada barnaamijkeena maanta waxaan daqiiqadaha soo socda idinkula wadaagi doonaa xogo iyo dhacdooyin ku saabsan qatar iyo koobka adduunka tan iyo intii ay ku guulaysatay inay noqoto waddanka martigelinaya FIFA World Cup 2022 waxaana si toosa loo furay maalintii shalay ahayd 20kii bisha 11aad 2022 sanadkii 2010 ayaa la iclaamiyay in qatar ku guulaysatay inay noqoto dowladda martigelinaysa koobka adduunka 2022 guud ahaan dowladuhu martigelinta koobka adduunka waxa ay ka dheefaan faa'iidooyin dhaqaale iyo xataa in caalamku uu barto oo faa'iidooyin mustaqbal ay ka helaan qatar waxa uga baxday martigelinta koobka adduunka 200 oo bilyan oo dollar wadamadii hore loogu qaban jiray markaad barbar dhigto waa lacag aad iyo aad u laxaad weyn tusaale ahaan waddanka koonfur afrika oo sanadkii 2010 lagu qabtay waxa uga baxday lacag dhan 3.3 bilyan oo dollar sidoo kale waddanka Brazil waxa kaga baxday 11 ilaa 13 bilyan oo dollar dabcan marka dhinaca kale ka eegto dowladahan waxa ay ka faa'iideen 3 laab lacagta ay ku bixiyeen martigelinta koobka balse qatar iyada ayaaba ku bixisay 5 laab intii ay ka faa'iidi lahayd koobkan lacagtaas kaliya kuma ay dhisin garoomada lagu ciyaari doono balse waxaa ku hoos jiray kumanaan mashruuc oo magaalooyinka dib loogu dhisay ama lagu qurxiyay sida dib u casriyeynta wadooyinka hoteelo waaweyn moolal fagaarayaal goobo dalxiis iyo xataa tareenka dhulka hoostiisa mara iyo sidoo kale magaalooyin cusub oo laga hirgeliyay qatar koobka adduunka oo 4 sanaba hal mar ay qabato xiriirka kubadda cagta adduunka ee FIFA ayaan la qaban sanadihii 1942 iyo 1946 oo dagaalka labaad ee adduunka dartii loo hakiyay tartankii ugu horeeyay ee FIFA ay qabato waxa uu dhacay 1930 waxaa martigeliyay dalka Uruguay isla xulka dalka Uruguay ayaana ku guuleystay haddaba mawduuceenin ma daarana inaynu ka sheekayno koobka adduunka iyo xulalka ka qaybgelaya balse waxaan intaa hore u soo xusnay si aynu iskula jaan qaadano oo aan iskula fahanno mawduuceena aan hoos ugu dhaadhace arrinka muhiimka ee aan idinla wadaagayo ayaa waxa uu yahay tan iyo intii ay qatar ku guulaysatay martigelinta koobka adduunka waxaa dhinacyo badan kaga bilaabmay mucaaradad iyo dagaal toos ah oo la rabay in lagaga hor istaago arrintan kaliya ma aha wadamada reer galbeedka ee xataa dowlado carabeed ayaa ka mid ahaa bilihii u dambeeyey waxaa reer galbeedka laga arkayay daandaansi cad oo ka dhan ah qatar sababtoo ay tahay maxaa dhacdadan weyn ama koobka adduunka loogu qabanayaa waddan islaam ah tusaale ahaan weeg ama 2 weeg ka hor wargeys Faransiis ah ayaa soo daabacay sawir kartoon ah oo uu ku metelay xulka dalka qatar waxaana uu muujiyay sidii argagixiso dhiban wata qoryo iyo bambooyin bal ka waran haddii xul ka mid ah wadamada Yurub sidaan lagu sameyn lahaa intii ay leekaan lahayd falcelinta ay ka bixin lahaayeen sidoo kale waxay warbaahinta galbeedku dhaleecayn ugu soo jeediyeen qatar in shaqaalaha ka shaqeynaya dhisidda garoomada aan la siin dhaqaale ku filan iyo in sidoo kale kumanaan shaqaalaha ay ku dhinteen ka shaqeynta goobaha mashruucyadu ka socdaan balse propagandadaasi ma aysan hirgelin kadib markii FIFA iyo hay'ado kale oo baadhitaan sameeyay ay caddeeyeen in ay arrintan waxba kama jiraan tahay misana shilalka yaryar ee laga yaabo inay dad ku dhinteen ay la mid yihiin kumanaanka kun ee shil ee ka dhaca daafaha dunida daandaansiga wadamada galbeedku waxa uu gaadhay heer xataa qaar ka mid ahi ay ka codsadaan xulalkooda inay baajiyaan oo ay qaadacaan ka qaybgalka koobka adduunka sida wadamada UK Jarmalka Holland iyo Denmark iyo sidoo kale magaalooyin Faransiis ah sida Paris waxayna ku dhawaaqeen in la mamnuucay in ciyaarahan laga soo tabiyo ama lagu soo bandhigo shaashadaha waaweyn kadib markii ay ka hor istaagi kari waayeen in tartankan uu ka dhaco dal carab ah oo muslim ah waliba intaa haddii aynu kaga soo tagno dhacdooyinkii ay rabeen reer Yurub inay kaga hor istaagaan martigelinta koobka adduunka iyo daandaansiga ay rabeen inay ku carqaladeeyaan sidoo kale waxaa la diiwaangeliyay in qatar ay ogolaatay muwaadiniinta Falastiiniyiinta ah ee sita baasaboorka Israa'iil in ay helayaan fiisaha qatar tani oo markii dambe keentay in loo ogolaado Israa'iiliyiinta inay heli karaan fiisaha qatar tan iyo usbuucyadii u dambeeyay waxay soo tarayay dhacdooyinka ay qatar ku xoojinayso kuna soo bandhigayso ilaalinta qiyamka dhaqanka iyo diinta islaamka markii ugu horeysay ayaa waxa ay qatar iclaamisay in koobka adduunka lagu furfuri doono aayadaha quraanka kariimka sidoo kale waxay casuuntay Dr. Zakir Naik si uu uga qayb qaato ku faafinta diinta islaamka kumanaanka kun ee qof ee isugu yimid qatar waxaana la diiwaangeliyay in ku dhawaad 600 oo qof ay diinta islaamka qaateen isla weygii ugu horeeyay ee taageerayaasha xulalku
ay ku sugan yihiin Qatar. Dhanka kale, Qatar waxay sidoo kale mamnuucday in la muujiyo calaamad kasta oo ay leeyihiin qowmuluudku, tan oo reer galbeedka aad uga cadhaysiisay. Sidoo kale, mamnuucidda khamriga oo 2 maalmood uun ka hor bilaabashada koobka adduunka ay baahisay Qatar ayaa iyaduna amaka ku noqotay wadamada galbeedka. Qatar waxay sidoo kale ku xadhay gidaarada garoomada ama goobaha dadweynaha waxyaabo muujinaya wanaagga diinta Islaamka sida aayado iyo axaadiis. Sidoo kale, waxay soo saartay in waqtiyada salaadaha la hakin doono ciyaarta muddo 15 daqiiqo ah, sidoo kale waqtiga aadaanka in la aamusi doono 3 daqiiqo. Sidoo kale, masaajidada waxay geysay muwaadiniin cod wanaagsan. Madax badan ayaa ka soo qayb gashay furitaanka FIFA World Cup ee Qatar, sida madaxweynaha Masar Cabdilfataax Siisi, dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudiga Maxamed bin Salmaan, iyo madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan. Turkigu waxa uu ciidan ilaalo oo si gaar ah u tababaran u diray Qatar si ay uga qayb qaataan sugidda ammaanka. Sidoo kale, waxaa Qatar ku kulmay oo isgacan qaaday markii u horeysay madaxweynayaasha Turkiga iyo Masar. Daawada intaa waxaan ku soo koobayaa dhacdooyinkii ka dhacay dalka Qatar tan iyo intii ay ku guuleysatay inay noqoto waddanka martigelinaya FIFA World Cup 2022. waxyaabaha ka soo kordha halkan ayaan idinkula wadaagi doonaa. Daawada haddaad ka heshay barnaamijka fadlan like saar, siina share garaa si uu gaadho asxaab kale oo danaynaya inay warbixinaha noocan ogaadaan. Kanaalka haddaad ku cusub tahayna subscribe saar. Mahadsanid. Barnaamijkan la midaynta aan ku kulmi doono. Sidaas iyo nabadgelyo.